waafi 25 media mar walba ka dhiga wehelkaaga iyo walaalkaaga. salaamada odayaal idil ahaantiinba ku soo dhawaada qiso yaab leh oo dhex martay ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Winston Churchill iyo nin tagsiile ah. Mr. Churchill ayaa yiri waxaan qaatay ama raacay taxi si aan u tago xarunta BBC-da. markii aan gaadhay xafiiskii BBC-da waxaa ninkii darawalka ahaa weydiistay inuu sugo muddo 40 daqiiqo ah. kadib ninkii darawalka ahaa waa iga raali geliyay wuxuuna ugu yiri kuma sugi karo oo waxaan tagayaa gurigeyga si aan u dhageysto hadalka oo maanta BBC-da ka jeedin doono ra'iisul wasaaraha wadanku. waan ku farxay darawalka hadalkiisa sidoo u xiiseenay inuu dhageysto wareysigeyga. kadib waxaan siiyay 10 bond oo ka badan intii uu ugu soo qaaday aan kula heshiiyay aniga oon isku sheegin ciddaan ahay. markii uu lacagta iga qaatay wuxuu yiri mudana waan ku sugayaa intaad doonto. Mr. Churchill hadduu doono naarta ha galo. halkaas waxaad ka ogaan kartaa in aragtida iyo mabda'a qof lacag lagu bedeli karo, in lacagtu wadan dhisan burburin karto, in lacagtu burburin karto qoys degan, in lacagtu kala fogeyn karto saaxiibo isku dhawaa, in lacag darteed dad loo dili karo, in lacagta dad lagu adoonsan karo. waxaa sidaas yiri ra'iisul wasaarihii hore Ingiriiska Mr. Churchill. halkaas ayayna iga eg tahay qisadaani. fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe rukumo oo asxaabtaada la wadaagsiina share garay. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.